بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الحمد لله، إلهي baa mahadsan subxaanahu watacaala oo naga yeela dad ahlu tawxiid muslimiina. Thaaniyatan aayadaas waxaan ugu furfurta waxa waaye ilaahay subxaanahu watacaala agoonta in la dulmiyo xaqooda la cunana waa diiday, in la kafaalo qaadana waa jecel yahay. oo nabigeena hadduu yidhi calayhi salaatu wasalaam, aniga iyo qofkii agoon kafaalo qaado jannada sidaan ayaan ku nahay, oo waa bijawaari nabiyi sala allahu calayhi wasalam qofka uu naqahayo wax weyn waaye. marka sidaas darteed aad iyo aad aan soo dhaweynaa markiskan oo racaayatul aytaam al-ithaar, aad aan soo dhaweynaa. meeshaan markis aytaam nooguma oolin, adagana kuma oolin. alxamdulillah, hadda annaga agoon waana, laakiin agoon waa weynaadayaan oo uma baahnin in maantana la caawiyo. laakiin agoon yar yaraa jirto oo deriskeena ah, oo barakacayaasha deriskeena iyo ummadaha kale ku jiraan. marka sidaas darteed markiskan waa soo dhaweynaa, waana ku dhiirigelineynaa ustaad. marka dadkiinaana waxaan idinku dhiirigeliyaa qofkii awoodi karo hal agoon, laba agoon, saddex agoon ha kafaalo qaado, mushkilo ma lahan. maktabay leeyihiin, ayagaa la wareysaa, waxaa la leeyahay agoonka meeqaa bish ku baxayso, yani jiifkiisa iyo noloshiisa iyo kulli daalika, intaas. marka intaas ka qoro, bish iska tuur, wax weyn maaha. mar haddii nabi maxamed jawaarkiisa aad naqaysa jannada aad ku taana maqlayso, qofka awoodo maanta dhaqaale haystane waxaa la tartansiyaaliga maalka iyo cilmiga على ترتنسي ماشي حلو براء المواي كفارة وحاكم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.